munaasabadani oo ahayd dafcadii labaad ee ka qalin bedelanaysa jaamacadda Global kuwaasi oo bartay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadan isla markaana ka qalin jabiyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadan bixiso sidoo kale munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya maamulka jaamacadda iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda Global University Bashiir Xasan ayaa sheegay in sanadkan soo socda ay qorsheynayso jaamacaddu inay soo kordhiso adeegyo waxbarasho ay u hayso ardayda Soomaaliyeed waxaana hadaladiisii ka mid ah jaamacadda waxaan dhisnay 2014 ayaan dhisnay waxaan sameeyay qalinjabintii labaad ayaan sameeyay waa iska jiraan caqabado badan aan la soo kulannay laakiin aqritaankii hadda waxaan taaganahay guusheedii labaad dadka aan soo saaray inay noqdaan dad dhisan oo wax u taro waddanka ما عن إلى سيد عدو شق السماء أتكفر كذي وعن رجال هذه الجار الآن وجد قيمة باهر مكاس كده حجر المجتمع كاس عن هذه إن عندك وجود كل يوم على نص غيبة صار غيبة سيام يوم يوم تنتهي أقول له هذا جامعة حولنا الوجود هي سماء سطح عند الإسلام كلا يكون تاميار يقول جيتو سكورتي إنتهي بناء الاتصال بالخاصة حفلة اللي بروح عندنا إلى أيضا كل يوم الدقيق عم كل حفظ النهار إلى هاي geesta kale qaar ka mid ah ardayda qalin bedelanaysa ayaa u mahad celiyay maamulka jaamacadda iyo waalidiintii la soo dadaalay waxaana hadaladoodii ka mid ah waxaan rajaynayaa qofka cilmi barto inuu bulshada la mid ahayn oo cilmiga u yahay hidaayada iyo hanuuninta iyo wax waliba aad ogaanayso aad ku kala saarayso xaqa iyo baatilka oo ugu horeeya cilmigaas ugu dambeyn waxaa madashaasi soo gunaanaday xildhibaanad Maryan Maxamed iyo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ku booriyay ardayda qalin jabisay in ay sii wadaan waxbarashadooda isla markaana ay u adeegaan dalkooda iyagoo arintaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen aad ugu faraxsanahay maanta inaan kala soo qayb galo kulliyadda jaamacadda Global oo qalin jabinayso waxaan leeyahay hambalyo حقيقة جامعة مدعى وينه وأيسيدة مدعى Global وأدونك يوم إذا كتب لنا يسأل الأهام هذه الملكة الأهامها هذه كل يدها كالدول إذا أي أهام هايين مدحض وإذا أساتذة وإذا ولا ريال انت لو حاتين ضمانتا ودن كان انه يخبر بالامر هاني محمد الشفيع وراركا افتين سومالي TV